walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala qofku shan ku arsaaqo wuxuu u ballan qaadayaa shantaas inuu ugu bedelo shan kasii qiimo badan. ilaahay baana qur-aan ku sheegaya kow ila tira hadda ilahi wuxuu subxaanahu watacaala lain shakartum laaziidannakum. kow waa shukr. qof walbo ilaahay u shukriya ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu u ziyaadiyo waxaad haysato ee nicmo ah. haddaad ilaahay ugu shukriso ood ugu mahad celiso ilaahayna wuxuu ballan qaadaya subxaanahu watacaala uu kugu bedelaya inuu kuu badiyo ziyaada. waa ta koobaad. ta labaad kuu sheegayn waxa weeyaan ilaahay subxana watacaala waxa uu yidhi qof walba oo towbad ila soo aada inuu ka aqbalay. taana waa ballan ilahi qaad subxana watacaala wahuwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih. ilaahay subxaanahu watacaala waa uu aqbalaa towbada qofka towba nasuuxa la yimaada oo markaasi ka zaahida xumaanta iyo fisqiga wuxuu ku dhex jiray oo ilaahay soo qaabila. ilaahay subxaanahu watacaala kama jeesanaya biidn illahi alkariim. marka ilahay waa isaga sheegaya dhahaya غافر الذنب وقابل التوبة. قابل التوبة إلهي وكان توبة كأقبلية وهو الذي يقبل التوبة. إلهي وكان كأقبل التوبة عن عباده أدومديسا. تكوبات محنر الشكر الله محنر التوبة سدحاد ومحي والصبر. قف والبؤ الصبر لي ماذا إلهي سبحانه وتعالى حب لنقاضي أجر النمرة أجر أمولي قائلين إنما يوفى الصابرون أجرهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قف والباء صابر صابرين تلاو حب الانقاذ يا أجر بغير حساب. هذا صبر لتمادو أدنكو حسابتا إن إلهي كسيو أجر آن كلاكو إدون حسنات آن دمان دون إنه إله سبحانه وتعالى يعني فوق العقل إنه إله هو أرزاقه. تن أفراد وحوين إله سبحانه وتعالى قف البول لقابلة الاستغفار. استغفار إله سبحانه وتعالى وغفور رحيم. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء الله أكبر يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. انت عن تأفراد كده يعني استغفارت أيام حربنا قصير وكسر أرتي أثرك يبقى أرتي في قصص الأولين إن كان شيء واحد النبي الله موسى عليه السلام أيها الدكار حلقوا إنه لا بعرب الآن بعد عظيم سحري أصابحين رفضون بأي مادة مركز إله سبحانه وتعالى أي بريد dadka meesha isugu yimid ee mowjka ee jamaahirta waxa ku dhex jira nin ilaahay caasin jiray 40 sano oo waligi macaasul bana sameeyay dadkii u dhex taagay dadkan ilaahay bariya subhanahu wa ta'ala ilaahay jalla sha'nuhu roobkii waa soo dejin waay. موسى عليه السلام باوديه الله ربه نو سو دج إلهي بحكوريا موسى waxa idinku dhex jira nin inta sanay caasinay ninka reer banu Israa'iil iska dhex saaran ana arabka soo daayay. markaas nabi ilaahi Muuse xulaha reer banu Israa'iil ya bani Israa'iil reer banu Israa'iil oo nin noocaas jire iska soo dhex saara war ninka noocaas waa istaqaana ee dunuubta noocaas ku dhacay macaasidiisu ay buuraha ninkaas oo dadka dhaxbax. ninkii markuu qisadii maqlay iyo qowlka nabi ilaahi Muuse oo maqlay iyo dadkii horaadinay oo maqlay isna uu is og yahay markaas uu isla hadlay. ilaahi buu la hadlay ya Allah haddaan banaanka u soo baxo oo dhaho waa anigana ummadan oo dhan ba fadeexaynayso ya rabbul alamin ummadan ma arkay ma hor istaagi karayo haddaan iska joogo oon soo bixi waayane de masaakiinta iyo caruurta iyo haweenka iyo maxastar iyo xoolaha iyo bini ya rabbul aan ku dhacaya marka laba daran mid dooro waa haddii anta ku dhex jiro roob soo degmo dadka waa baaba'ayaan haddaan soo baxnana ana ciibaba ya Allah idan bidaf istaghfir li ya Allah ilaahi idan bidaf. markaas ilaahi subhanahu wa ta'ala roobkii soo daayay nabi ilaahi Muuse wuxuu arkay roobkii da'aya markaas ya Allah ninkii ma soo bixin roobka maxaa u soo daysay. markaas ilaahi wuxuu ya Muuse ninkii aan raadinayay idinku dhex jiray in laha soo bixiyo anigu waan ogaa idin diray waa oo ay toobad keena toobad wuxuu la yimid aan aad ugu farxay saasan roobka idinku soo daayay. markaas nabi ilaahi Muuse alayhi salaam ya Allah أنا أفرح إنك إتوس إنك هي إتوس إيش إيجا قاد. مركز إلهي وحوج جواب يا موسى إسقوا أفرتن سنة عاصني أيانا بفديحيني ما أسقوا هذا مؤمن وأنا جئت توبت كيران عيبين يا أم فديحين يا الله أكبر.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وتأفراد استغفار تبدي تشهد حوين الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دعاء هدس الموانع إذا الله إيمان إله سبحانه وتعالى وكأجيبيا ويسان كم إلى الشرك أيو ما أرتبي بغير الإيمان أيو أكل الحرام وحيا الله هدت كفواته وما أرتبي إله سبحانه وتعالى أدبرذو إلهي وأوك أقبليا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربي يقول إبريا أن إذن سيئ إله سبحانه وتعالى إسبح وديسو إذا وكو عروني أو مخلوقك لا عرته إله وديسو شنتا الريموت وشن قرنتي ولكن وان انت أبها النهي. حياك الله وبياكم برار بدك إن شاء الله. سلامة.